Assalaamu calaykum. Halkaad naga daawanaysid waa Una Official. Fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaaladan xiga. Muuqaalkani waxaa kaga sheekeyn doonaa hal abuurkii shirkadda cabitaanada gaaska ee Pepsi. Pepsi waxaa markii ugu horeysay soo saaray nin loo yaqaan Caleb Pradham oo ku noolaa North Carolina sanadkii 1893. Pepsi guud ahaan wuxuu ku faafay dalka Mareykanka, wuxuuna noqday mid ka mid ah cabitaanada ugu caansan waqtigan iyo waqtigaasba labada waqti. Dhanka Caleb, ninka aasaasay ama keenay Pepsiga oo loo yaqaan Caleb Pradham, wuxuu ahaa nin xiiseeya xagga caafimaadka, daweynta dadka, mar walba wuxuu ku dadaali jiray inuu barto caafimaadka. Sidaas darteed, wuxuu isku dayi jiray inuu dadka caafimaadkooda u wanaajiyo habab cusub maadaama uu asaga xiiseyn jiray daaweynta. Wuxuuna iska diiwaangeliyay jaamacadda North Carolina, balse waqtigaas aabihiisii waa uu musallafay oo ma sii joogi karin jaamacadda. Sidaa awgeed, waxa uu ku soo noqday gurigiisii oo muddo gaaban ka shaqeynayay qaab macallinnimo ah. Kadibna waxa uu ku guuleystay inuu iska diiwaangeliyo jaamacadda Maryland. Markii uu qalin jebiyay, wuxuu ka furay farmashi ku yaala New Pearl, kaas oo ugu yeedhay Pradham's Pharmacy. Kadib markii uu ikhtiraacay Pepsi, waxa uu bilaabay inuu ku iibiyo farmashi uu isaga leeyahay. Ninkani jaamacadda ayuu kasoo qalin jebiyay, farmashi uu furtay, Pepsi buu ikhtiraacay, Pepsigii wuxuu ku dhex iibinayay farmashigiisa. Waxa uu bilaabay inuu ku iibiyo farmashi isagoo iska leeyahay. Pepsi waxaa waqtigaas lagu yeeri jiray magaca cabitaanka Prat oo uu ugu magac daray qoyskiisa Caleb. Waxa uuna sameeyay iyadoo la isku darayo mid kasta sonkor, saliid liin ah, looska loo yaqaano ama looska loo yaqaano cola, iyo looska caadiga ah, biyaha iyo karameelka. Pepsi Corporation waa mid ka mid ah shirkadaha iyo noocyada ugu waaweyn adduunka xagga cabitaanada, waxaana alaabteeda lagu iibiyaa in ka badan 150 oo waddan. Waxaana lagu magac daray Pepsi sanadkii 1965 kadib markii ay midoobeen labada shirkadood ee kala ah Frito-Lay iyo Pepsi-Cola. Shirkaddu waxay xarunteedu tahay New York State. Bilowgii qarnigii 21aad, shirkadda Pepsiga waxay bilowday inay ku fido wadamo waaweyn sida dalka Ruushka, kaas oo ay ka samaysatay suuqa labaad ee ugu weyn sanadkii 2008. Kadibna waxay iibsatay qayb ka mid ah soo saaraha shirkadaha waaweyn ee cabitaanada ee loo yaqaanay markaas Levitsky ee dalka Ruushka. 3 sano kadib, waxa ay la wareegtay shirkadda loo yaqaan Wimpel, taasina waxay ka dhigtay inay sidoo kale qayb ka noqoto shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara cuntada. Shirkadda cabitaanada ee Pepsi waa shirkad ikhtiraacday markii ugu horeysay inay qaab casiir inay iibiso ay suuqa u soo gashay. Kadib way isballaarisay, suuqa ay isku ballaaratay. Waa garad samahan. Suuq markay ku ballaaratay, waxay isku dayday inay iibsato kambaniyo waaweyn ee sameeya cuntada. Sidaa darteed, waxaad dareemi kartaa dhaqdhaqaaqa iyo long-term vision-ka ay lahayd shirkadda Pepsi, ayadoo ku dadaalaysa mar walba in dominant ay ku sameyso wadamada adduunyada. Waa sababta maanta ay caan u tahay oo qof waliba u yaqaano cabitaankeeda Pepsi, gasaceeda buluugga ah ee Pepsi. Qof waliba uu yaqaanaa dal walba haddii uu joogo.
waxaa lagu qiyaasaa faa'iidada shirkadda BBC 70 bilyan sanadkii wax ka badan. Waad dareemi kartaa shirkad sidaas u weyn in intaan iyo in ka badan ay sanadkii soo xareyn karto. Waxaan rajeynayaa in muuqaalka wax badan xog badan aad ka faa'iiday.